kelmadeenna koobani waxay la xidhiidhaa inaynu wax ka nidhaahno mowqifka ama halka uu iska taagay islaamku iyo muslimiintu in loo xafladeeyo sanadka cusub ee gaalada ama miilaadiga la yidhaahdo ee january ka bilaabma xafladayntaasi culimada islaamku waxa ay ku tegeen inaanay bannaanayn wax bannaan maaha oo sharci ahaan xalaal maaha daliiladan soo socda daraaddood shantan arrimood ayaa ay cuskadeen culimadu midka u horeeyaa waxa weeye qowl ullahi tacaala ilaahay baa wuxuu ka waramayaa mu'miniintu ilaahay ammaanay markuu ammaanaya mu'miniinta waxau uhi waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama dhaqankoodu waxa weeye dadka alla yaqaanka ah ee ilaahay uu ammaanay marka ay zuurka soo maraan waxa dembiga ah iyo waxa bilaa macnaha ah way iska dhaafaan waxaa dembigaa ma xaadiraan waxay ku fasirayaan culimada mufasiriintu sida mujaahid iyo aimo kaleba waxay leeyihiin waa ciidaha gaalada kuwa aanay xaadirayna la sheegay waa ciidaha gaalada ma xaadiraana way iska dhaafaan buu ilahay subxana goobjooguma noqdaan ibnu siriinna sidoo kale waxa uu leeyahay huwa shacaaniin waa ciid annasaara waxa ay shidayaan iyo dabaaldega ay samaynayaan daliilka labaad waxa weeye anas ibnu malik ayaa wuxuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi madiina iyadoo aanu leenahay macnaha waa markii uu hijroodu maka ka tegay sanadii koobaad wuxuu tegey madiina marka wuxuu tegay iyadoonu laba xafladood leenahay oo sanadkii 2 jeer baanu dabaaldegi jirnayo mid waxa uu ahaa kan la yiraahdo nayruuska midna mid kale oo mehrajaan la oran jiray buu ahaa wuu su'aalo wuxuu maxay ahaayeen labadan maalmood ee dabaaldegaysa waxay yiraahdeen waa laba ciidood oo aanu leenahay waqtigii jaahiliyadii ayaanu samayn jirno waa sii wadnaa wuxuu iskaga taga ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan oo labada ciidood ee ciidul fitr iyo ciidul adha oo laba faral oo la soo dhameeyay baa lagu faraxsan yahay marna waxa la soo dhameeyay faralkii bishii ramadaan marna faralkii bishii dilxijja xajkii ayaa la soo dhameeyay labada shay arkaan islaamkii kamida ayaa la soo dhameeyay lagu faraxsan yahay oo u dabaaldegaya dadka muslimiinta marka maadaama labada ilaahay idinku bedelay iskaga tagay buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam marka nahyiga iyo diidmada uu nabigu saaray in la qaato weey oo marka aan la weydaaranin xadiidkaasina waa sugan yahay arinta saddexaad waxa weeye waa al-ijmaac culimada islaamku waxay isku waafaqeen ijmaacuna waxa uu kamid yahay daliilada shay hadii culimada muslimiintu isku waafaqaan waa daliilada la cuskadaa buu kamid yahay waxay isku waafaqeen inaan dabaaldegaasi xalaal ahayn oo aanu bannaanayn sidaa daraadeed ayaa waxaa jiray dad yuhuud ahaa oo nasaaro ahaa oo la noolaan jiray dowladda islaamka dadkii muslimiintaana ku dhex noolaa marka way iska samayn jireen ciidahooda laakiin waxaan loo ogolaan jirin inay kor u qaadaan ama ay muujiyaan ama ay dadka dhexdooda ku dabaaldegaan bal Umar bin Khattab radiyallahu anhu markuu madaxweynaha muslimiinta ahaa wuxuu shuruudaha uu la galayo dadka aan muslimiinta ahayna muslimka dhex degan ee islaamku ilaalinaya sharciga islaamkuna uu xukumayo gaalada ahaa shuruuduhu la galay waxa kamid ahaa inaydan kor u qaadin ciidihiina oo aydan dadka muslimiinta ku abaabulin oo aydan la soo dhaxgalin shuruudaha u dhigan jiray ayay taasina kamid ahay arinta afraad waxa weeye al-i'tibaar waxa la yiraahdo ku xisaabtan waxa la yiraahdaa jiro ah ciiduhu waxa ay kamid yihiin min jumlati sharaa'ic hadiya jeer sharciga iyo manhajka ummada ay leedahay ayay soo galaan ciiduhuna oo dadkaasi waa wax uu weyneynayo oo uu ku faraxsan sida horeba aynu soo sheegnay waxaynu la faraxsanahay waa arkaan islaamkii aynu soo dhameynay sida daraadeed ciidu waxa ay ka turjumaysaa diimaha dadku diin bay ku daba leedahay dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay iska arkaan arin
iska reer magaalnimo ah oo ilbaxnimo ay ku yara jirto oo maalmaha la iska ciyaaro oo mustaqbal la higsado oo waxyaabahaasunbay u arkaan laakiin waa arrin diin ku daba leh markay diin tahayna dee diinta xaqa ah innaga hayno oo waa diinta islaamka dadka muslimiinta dadka caalamka ku noolna innagay marti inooga yihiin inaynu gaadhsiino markaa waxay sheegaysaa haddii ciidaha la sugo in diintoodii la sugo raalli laga yahay ayay sheegaysaa taasina waa arrin qalad ah marka ilaahayna wuxu uhi subxaanahu watacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan ummad walba sharciya waxaan u samaynay minhaaj iyo waddo ay raacaan marka taasina waa arinta saddexaad weeye ee tusinaysa inaanay banaanayn arrinta afraad weeye baan leeyahy arrinta shanaadna waxa weeye taariikhdu waxay ka turjumtaa huwiyadda ummaddaasi ciday tahay bay ka turjumtaa marka taariikhdana waxay ka turjumaysaa ummadahaan islaamka ahayn taariikhda islaamkuna waxay ka turjumaysaa ummadda islaamka ah iyo inay tahay maaragtay jiritaankooda waxyaaba asaaska u ah oo ummadaha waxyaabaha shaksiyadooda sheega waxaa ka mid a taariikhdooda luqadooda iyo diintiio kasii horeysa inahaasoo dhan waxay ka mid yihiin huwiyadda ummaddaasi yay tahay marka laga warramayo sidaa daraaddeed ayaa cumar bin khadaab allaha ka raali noqda marka ummadda islaamka isagii asxaabtii waktigaa joogay ay taariikhda u sameynayeen dee taariikhda lama qaadanin gaalada wax jiray ahayd taariikhda miilaadigu wax jiray ahayd marka lama qaadanine si ummadda islaamku ay u noqoto ummad iyadu tusaale ah oo aan daba socod ahayn taariikhda hijriga ah markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine yimi kasoo bilaabmaysa taariikhdaasaa la qaato asxaabtu ay isku waafaqanaya muslimiinta oo dhan waxaa loo arkaya haddii tan la qaato inay tahay ku raacid iyagii lagu raacay manhajkoodii iyo nidaamkoodii marka shantaa arrimood daraaddood midna intaba waxa ay muujinayaan inaanay habboonayn oo aanay sax ahayn ay qalad tahay u dabaaldega sanadkaa loo dabaaldegaya da-yarta iyo siiba dadka debadaha iyo habeenada aada la isula dhacayo koobabka keegaga la cunayo ee aada loo farxayo waxaad ku faraxdaa wixii xaqa baad ku faraxdaa marka tanina waxa weeye runtii taa ummadaha kale ay leeyihiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam hablo yaryaroo ciyaarayay maruu arkay wuxuu ku lahaa cumar bin khadaab iska daa kani waa ciiddii islaamka haadaa ciiduna ahla alislaam tani waa abubakar iyo cumar labaduba markaas waxa uu ku lahaa waa ciiddii islaamka ah daatan markaa ha farxaana buu lahaa marka taas inahaasaynu baraarujin lahayn dadkuna dee kol hadduu qofkuna qof muslima yahay islaamku ma aha oo keliya dee inuu ku abtirsadee waxa habboon inuu dee dhaqan noqdo oo dhaqankii qofka inuu ka muuqdaaba aada u muhiima si aanu qofkii dee laba qof u noqonin qof ficil aan islaam ahaynna samaynaya afkiina islaam ka sheeganaya o ashahaadanaya si aanu u noqonin marka arrimuhuna yaryaraysi ma lahoo shaygan markay dadka waaweyne sameeyaan da-yartaa kusoo dayanaya hadhowto hadhowna kuwa ka dambeeya kusoo dayanaya sidaasaa markaa diintiiba lagaga tegaya marka taasaynu isku baraarujin lahayn aada iyo aadna waa mahadsantihiin dadkana dhammaantood walaalaha muslimiinta in ilahay waxaan ka baryayaa inuu uhiiliyo nasrigiisa iyo gargaarkiisa uu siiyo iyo guul iyo gobonnimo dad diintooda ku dhaqma oo ilaahay subxaanahu watacaala oo camalka saalixa ka aqbalana inuu ilaahay ka dhigo wahada ma aquluhu waastagfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu